بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sida hore aan usoo barnayba casharka hore waxaan kusoo qaadanay share permissionska sida loo isticmaalo oo loo manage gareeyo oo loo maamulo ayaan soo barnay. maanta waxaan baranaynaa NTFS permission wax la yiraahdo. waxa waaye new technology file system wax la yiraahdo ayaan baranaynaa oo loo soo gaabiyay NTFS permission. marka NTFS permissionska iyo share permissionska waxay ku kala duwan yihiin. share permissionska waa network ahaan ayaad u soo galaysaa waxaana ku xadidaysaa inta qof oo maaragtay folderka ama filekaas aad share ka dhigtay oo permissionska aad siisay qaabkii loo xadidi lahaa meel qof ayaa ku soo xirmi karto. NTFS permissionskana waxa si locally ah ayaad maaragtay computerka maaragtay ugu manage gareynaysaa ama ugu xadidaysaa oo maaragtay server kale ama computerkaaga caadiga fileka ama folderka ku jiro ayaad maaragtay ku xadidaysaa qofkii maaragtay filekaas ama folderkaas isticmaali lahaa. marka qaabka loo isticmaalo ama loo sameeyo waxaan tegaynaa file explorerka waxaan tegaynaa documents filekan oo maaragtay folderkan data ayaan sameeyay folder sida loo sameeyana cashar ayaan kusoo qaadanay. marka folderkan ayaan create gareeyay oo sameeyay waxaan leeyahay right click ayaan leeyahay qaybta midig ayaad click siinaysaa laptopka ama mouse-ka kadib waxaad tagaysaa propertieska markaad tagto waa kan marka data propertieska ayaan joognaa. marka hore waxaan usoo barnay share-ka qaabka looga dhigo oo maaragtay loo xadido casharkii hore ayaan kusoo qaadanay. markii NTFS permissions aad maaragtay inaad sameyso kale type-ka oo security ku qoran tahay ayaa click siinaysaa. markaa click siiso waxaa ku soo baxaya dawaa kana system userska iyo anigoo ah Mohammed oo maaragtay user ahaan aan create gareeyay iyo administrator labadan waa by default ayay ugu yimaadaan computerka kana waxa ku qasban tahay markii computerka soo cusub aad keensato ama aad soo gadato in maaragtay user aad sameyso waa ku qasban tahay si aad computerkaas u isticmaasho. marka Mohammed saas ayaan u sameeyay oo maaragtay waa maaragtay qofka adminka ah oo computerkan maamula wuxuuna maaragtay kamid yahay part of waxa waaye administratorska ayuu kamid yahay marka Mohammed. marka saddexdan ayaa jirto oo by default ah. marka hadda kan system oo kale full control ayuu haystaa hada fiiriso inta maaragtay waa shared waaye laakiin looma jeedo laakiin full control ayuu haystaa. Mohammed sidoo kale administratorska sidoo kale full ayay haystaan oo maaragtay computerkan fileasha ku jiro waxay xaq u leeyihiin inay maamulaan. marka haddii aan rabno kale in aan folderkan hadda aan dul joogno haddii aan rabno qof kale oo saddexdan ahayn inuu isticmaalo kale oo computerkan rabo inuu isticmaalo oo aan ka xadidno kale oo folderkeeni inuusan oo maaragtay wax uu ka bedelin oo kale ama uu wax ku darin oo kale ama data igu jirtay uu iga tirtirin oo kale maaragtay kambaniyada aad ayay u isticmaalaan oo waxa lagu leeyahay kale folder hadii adiga oo maaragtay user adigoo ah oo computer hadaad gasho kale oo userka ku gasho kale folder hadaad maaragtay aadan permission u lahayn hadaad rabto inaad maaragtay isticmaasho ma ku ogolaanahay wuxuu ku leeyahay laguma ogola folder access deny ku leeyahay access deny waxa waaye ma isticmaali kartid wax maaragtay permission uma lihid. marka qofka sameynayo oo maaragtay permissionadaas bixinayo waa adiga oo maanta hadda aan casharkan aan isla baranayno. marka qaabka loo sameeyo hadii aan isla fiirino hadii aan rabno kale marka in aan another user ku darno kale aan u ogolaano folderkan inuu akhriyo kaliya read kaliya ayaan siinayna waxaan leenahay advanced ayaan tegaynaa markaan tagno waxaan leenahay add ayaan leenahay meeshaas add ay ku qoran tahay ayaan click siinayna select principal ayaan click siinayna. marka hadda waxa ay create gareysan folder oo arday ama user arday la dhahay ayaa computerkan aan u sameeyay. haddii aan isla fiirino waa kana Mohammed tan click siino waa kana marka arday 1 arday iyo arday 1 laba qof oo Mohammed aan ahayn ayaa computerkan
aan maaragtay login ku sameyn karto aan sameeyey. marka labadaas mid ka mid ah ayaan waxaan leeyahay igu soo dar arday waxaa leedahay marka check name macnaha hadduusan arday create garaysnayn ama uu ku samaysnayn haddii check name aad tiraahdo kale markuu soo baxay if fiiri userkan ma jiraa marka hadduu jiro wuu kusoo saarayaa oo maaragtay hadduusan jirinna wuxuu ku leeyahay userkaas ma samaysna. marka waxaan leenahay okay ayaan leenahay haddii aan isla fiirino kale okay ayaan leenahay intana okay ayaan leenahay waa kana marka haddii aan apply dhahno oo okay dhahno fiiri arday wuu noo soo galay haday system Mohammed iyo administrator saddexdaas ayaa noogu jirta. marka hadda arday kala tagno kale muxuu haystaa arday fiiri the system oo kale full control ayuu haystaa oo maaragtay computerkan wuxuu rabo ayuu ku sameyn karaa Mohammed oo kale sidoo kale laakiin ardayga hadda aan ku darnay wuxuu haystaa read and execute in maaragtay uu wax aqriyo ama software uu maaragtay run gareeyo computerka ku soo daro ama list folders contents inuu fiiriyo kale read ka maaragtay inuu wax aqri karo kale saddexdan ayuu haystaa. marka hadaan rabno kale arday inaan full control siino ama read kaliya hadaan siino hadaan rabno inuu wax aqriyo kaliya arday aan tagayna meeshaan deny ma aragtay hadda waa kana fiiri waa ka bixinayna kana ka bixi wax kale ma haysto read kaliya ayaa tigno ah fiiri read kaliya ayaa tigno ah read kaliya macnaheedu waxa waaye ardayga oo userkan arday la yiraahdo wuxuu kaliya uu sameyn karaa folderkan data ah waxa ku jiro kaliya ayuu aqri karaa ma tirtiri karo wax ma ka bedeli karo waxba kuma sameyn karo read kaliya ayaan siinay. dadaamis waxa waaye adiga ayaa maamulaya folderadii waxaa leedahay qofkan read hala siiyo qofkan full control hala siiyo oo computerkii waxa hadaan rabno waxaan dhihi karnaa full control hala siiyo ayaan dhihi karnaa sida full hadaan mujada kulli tig ay noqoto wax walba ha sameeyo waaye wax walba hadduu rabo ha sameeyo ayaan dhihi karnaa laakiin ma rabno oo waxaan diidaynaa in uu maaragtay userkan ardayga ah oo maaragtay wax uusan naga tirtirin oo kale ama waxyaabo muhiim noogu jiro inuusan datada folderka la yiraahdo noogu jirto inuusan wax ka bedelin. marka read kaliya ayaan siinayna waxaan leenahay marka apply okay ayaan leenahay marka hadda Mohammed ayaan kugu jirnaa computerkan haddii arday inta log off aan dhahno Mohammed oo log in aan ku soo dhahno arday markuu arday computerka soo galo datada folderkan oo data la yiraahdo waxba ma ka bedeli karo aan hadda ka baxo maaragtay recordingkii ayaa maaragtay iga damayo oo maaragtay recording ma sameey kariyo hadaan log off dhaho oo Mohammed ayaan kuga jiraa. marka si maaragtay fahan buuxa uga qaadataan ayaa idinkugu sharaxaya haddii aan Mohammed log off aan ka dhaho oo log in aan ku soo dhaho arday folderkan read kaliya ayuu haystaa ma delete garay karo waxba kama bedeli karo waxba kuma sameeyo wuu akhri karaa faylasha ku jiro kaliya wuu akhri karaa. marka saas ayaa loo sameeyaa NTF permissionska hore waxaan usoo barnay share permissions casharkan waxaan ku barnay NTFS permissions. marka casharkeen intaas ayaan kusoo koobaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.